السلام عليكم أصحابتي سو دوادا وولاشين دقن وما شاء الله إنكو سو دوينيسو جنرالكي دقن 101 ما شاء الله marka aad ayaan kaga mahad celinaya inta ugu xiran inta kalena soo dhawaada meel kasta ay joogtiin salaanta islaamka salaam calaykum ayaan ku salaamaya salaan qaali ah maanta barnaamijkaygan aan wado maanta uu ka duwan yahay kuwii hore aan videogayga soo dhigi jiray mostly ma sha Allah because maalinba waxba ku dhiirigelinaya ama waxba kugu soo dhacaya ama waxba arkaysa marka waxa rabtaa inaan ma arkino wixii ma sha Allah wax ka qabatid ama ka hadashid aan jecelnahay the whole reason ka videoga loo subsado ama YouTube ka aan u subsado especially saas waaye macnaha haas ku socda marka maanta barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay ilmaha iyo maxaa dhahay ilma hooyanimada sidee kor ugu qaadi karnaa oo ilmaheena hormari karnaa hooyo kasta way taqaanaa sida ilmaheeda loo hormariyo ama sida wax loola dhaqmo ama sida loo koriyo qof u sheegayo laakiin wax yar ayaa la isku dheeriyo fikrad walaasha adiga ka maqana walaasha ku jirta la dhahay marka fikradaas ayaa maanta in la share gareena oo maxay ahaato sida loo baarinta gareeyo oo ugu fiican jidka oo hooyanimada aan u mari karno oo ugu haboon oo fikrado iska qaadan karna ma sha Allah ayuu ku saabsan yahay videoga marka ku soo dhawaada gacmo fur ayaan ku soo dhaweynaya meel kasta ay joogtiinba because maana iga baran inaan soo galo hadda ka bacdan hadii ilaahay idin wax u badnaa doontaa mostly inaan soo geliyo waxyaalo kala duwan videoga markastaba ma ahan only kaliyanigi iyo organize-ka ama cuntadii ama ilmihii ma sha Allah marka wax kasta oo markaas aan isdhahoyo okay maanta videoga kan uu ku fiican yahay inaan soo qaato ayaan rajeynaa insha Allah marka soo dhawaada don't forget to subscribe and thumbs up share if you like the video ma sha Allah laantiin abaar waaye you know you have to support gareena ma sha Allah marka maanta wuxuu ku saabsanaanayaa 5 qodob oo maxay ahaato sidee amor maxaa arkino baarantinimada amor aan kor ugu qaadana oo hooyanimada ama arkino ama waa aragtan Soomaalideena waxyaalo badan oo easy oo aan ku dhaqano oo laakiin ilmihii damage gaarsiinaya iska buuxo sida maxay ahayd caaydo kaleeto iyo sitaanko kaleeto ama cunuga ku dhaga hadalka kaleeto waxyaalahaas oo kale marka ma sha Allah uu ku socdo maanta videoga marka 5 qodob aan soo qaatay 5taas qodob ayaan noo taabanaya marka qof kasta uu og yahay ma sha Allah laakiin waa fikrad aan in la jecleystay maadaama in aniga aan ku dhaqmo aan jecelahay dadka walaalaheena gabdhaha walaalahay ama hooyooyinka kalena sidaas oo kale ay fikrad ka qaataan waxay ka helaan ay ka qaataan marka ma sha Allah qodobka ugu horeeyo ma sha Allah waxa waaye level gareenta ilmaha la isbarbar dhiga ma aragtay oo cunug kala barbar dhigtid oo tiraahdo ma sha Allah waa u badanahay waxa laga yaabaa inaan u badnaano oo maanta oo dhan aan dhahno maxay eedo farxiyo waa gabar smart ma sha Allah xisaabteeda iskoolkeeda looguma tago quraankeeda way ku fiican tahay ma sha Allah laakiin safaarixi ma arkino wiilkii ama gabadhii kala gula joogta example ahaan waaye wax ama arkino waxay hadhow iyadu ku abuureysaa uqdad oo maxay ahaato cunugan markasta hadaa hadal haysid oo midka oo xogaa aqoontan Ilaahay ilmaha iska soo umasiyo mid kasta waxbuu leeyahay mid baa laga yaabaa inuu aqoonta ku fiican yahay mid baa laga yaabaa inuu quraan ku fiican yahay mid baa laga yaabaa inuu wax sameynta faraha wax lagu sameeyo uu ku fiican yahay geemka uu ku fiican yahay you know bil aadanka isku mid ma aha mid kasta waxbuu ku fiican yahay marka haddii maanta dhankii oo adiga aad jecleed inuu quraanka ku barta ama aad jecleed inuu iskoolka ay ku helo haddii akii aad amaantid marka kuwii kale taas ay uqdad ku reebaysaa marka taas in la iska daayo anaka way ahaanteena oo hal cunug aan maanta dhama ilmihi hortooda lagu amaanin markina ma sha Allah waa number 1 mid kasta wuxuu ku fiican yahay aad sheegtid mid kale tan alxamdulillah aad tahdid oo quraanka Ilaahay u fududeeyay waxbarashada kale Ilaahay u fududeeyay kuwii kalena markaas adiga Ilaahay bariso tira Ilaahay quraanka igu fududeey Ilaahay waxbarashada igu fududeey Ilaahay saan iyo suubi markasta ma arkino haddana aad iloobin in Ilaahay u mahadnaqdo tira alxamdulillah Ilaahay oo ada ilmaha siisa mid kasta wuxuu ku fiican yahay ma sha Allah taas waa ta koobaad tan kale labaad waxa waaye ilmaha ma arkino magaca loogu yeero in ilmaha magacayaasha lagu joojiyo ya Soomaalidana taas oo ku qalin jibina in shahaadana lagu siino umaleena in ilmaha magaca loogu yeero maxay ahayd dadkoor sheekh dhageysana sheekh Cabdirasaaq ma sha Allah xafidallah wuxuu dhahay maxay ahayd hadda koor wuxuu yiri maxadaro noo sibina waxa eragaan markuu ka hadlay ilmaha magacayaasha loogu yeero wuxuu yiri hadda koor markii madaxa la iga soo xiro Soomaali waa nacabaajiro yiri raysanka u nacabaajirna waxay ahayd yiri ma xiirow madaxa saana la dhahaa xiirowgaas kaliya ceeb kale ma laakiin markii madaxa laga xiro bas hadalku ugu dhagaayay marka example ahaanta waxa waaye balka imagine hadii markii madaxa laga xiro ama kabaara ungoto dadka saaxiliga ay dhahaan ma arkino majamoto ma arkino tiangoto wixii la dhihi jira ma sha Allah ama maxay aad cunuga xiiro loogu yeero ama madaxweyne loogu yeero ama waxyaalihii badna
bal imagine adigu hooyadii dhashay haddaa magacyo ugu yeerto cunugii soo noqonaya bixi banaanka iska daa marka inaa adiga tira waryaa madaxweyne naa ilka dheer gabadha ilka dheer waryaa ilka dheer ka kan fiiri faalxumada badan leh maxay ahaato suu egyaha fiiri wallaahi madaxiisa fiiri indhihiisa xunka fiiri maanta oo dhan like any name oo afkaada kusoo dhaca ina soo meeshan garaysid cunugii ku dhahdid waa wax laga fiican yahay because waxaas uqdadaas ayay madaxii ka galaysaa ilmihii oo maxay ahayd uu qaadaniba okay aniga foolxumo baaba ahay wallahi cause a lot of damage dadka ku suubisa marka ama qof adoo weynaa taxta waxa laga yaabaa markii adoo yar lagu dhigi jiro afdheer ina iska aamintid maxaanta af okay afdheer abad afkayga wuu dheeriyaa oo laga yaabaa afkaada had inuu soo dheereen ba haduu dheeriyaa xataa you don't have to in a level lagu dhajiyo oo lagu dhaho okay saasaad u eg tahay example hadda ka hor maxay ahayd aan itusaayay meel iskool aan ka shaqeynay wiil yar oo yar hadda oo kiri gaaran waaye wuxuu suubinay markaas waxaan ku dhahay habar yar maasha Allah shaxshax baad si fiican u suuba habar markaas yar habar yar hee aniga doqon baan ahay example waa wallahi caloosha ay waxa lunta waan aniga doqon baan ahay habar yar good job maxaa ii dhahaysaa aniga waxba kuma fiicni waxana ma suubi kari because doqona waxaan ku dhahay habar yar waaya has u dhahaysaan ku dhahay maxaa u dhahay doqonaga markaas yar aabahay markaas wuxuu dhahay war doqona waxba aqoon baa tahay waxba ma qaba kartid waxba ma suubsi kartid doqonyo xunka marka habar aniga aaba told me that doqona ana ahay adiga kala ka dhaadacay bal hada waayo habaro macaankayyo doqon ma tihid wiil fiican wax barasho fiican anta because gurigii hadii cunuga damage looga dhigo oo laga dhaadacsiyo inuu cunugan doqon yahay oo waxba qabsan karin bal imagine 5 sano uu jira wallahi 5 years uu jira cunuga saas dhahooy kir gaaran waay marka kii weena iska bada kir gaarankii asoo intaas la eg ama ka siyar aan ku abuurin inuu doqon yahay inuu waxba qabsan karin inuu wax horumarsan karin sidee kuwii waaweyn marka hadda uga dhaadhicinayna inuu qof fiican yahay adiga laga rabo hooyadii ama aabihii laga rabo cunugaada inaad kor u wadid oo maxay ahayd amaantid haduu dabin yahay aad tira aaba dabin ma tihid hooyo dabin ma tihid maasha Allah wax ka sareeya ma lahan cunugu isgelinaya kor isku qaadaya qof wuxuu iska dhigaya wax qabsan kara laakiin hadii damage-kii asagoo wixii yaqaan laga yaabo inuu xisaabta ku fiicneen ama reading-ka uu ku fiicneen aad tiraahdo war doqon baata waxa taqaanid male alla kan intuu ka imaaday farkiisa hore ka soo jeedaa umaleynaya aniga ciidaheena hooyada aabi xagga loo kala bixiyo aniga dad wax barto maasha Allah ahaa jirnay kan maaya meel kale ka imaaday yaa hula dhaho marka walaalayaal marka taasna waa mid labaad oo aan isticmaalo Soomaalideena oo jecelahay inaan iska yareeno hooyooyinka especially because abooyinka waxa laga yaabaa inay badankood shaqo ku maqan yihiin laakiin se haduu aaba guriga joogana aragta xataa cunuga inuu hadal ugu yeeray ama caynaya ka dhahay waryaa cunuga uqdada iga dilino keep it down marabi private ahaan ina ula hadashid maasha Allah hooyada haday sidoo kale ta aabihi oo dhaw walaal ilmaha qalbi xanuuna iga ridina iga daa hadalada ugu yeeraysid also ama habaarka kale sida loo habaara diintana ogtiin habaarka meesha ka taaganta inuu cunugii habaartid aabihiis habaartid farkiisa meesha ka soo jeeda habaartid hooyada ayada ma dhahayso oo iyada iyo aabaha Allah cadaab waxay dhahaysaa aabaha awowgiisi ka soo jeeda Allah cadaabiyo maasha Allah marka wallahi waa dib meeran oo wax oo markana ina markasta waa laga hadlaa diinta waa laga hadlaa wadayaasha way ka hadlaan shaqayaasha waa laga hadlaa laakiin still afkii u barta umaleena marka insha Allah ilaahay wixii xunna afkeena ka dhowro tan saddexaad oo u badanna ayadana waxa waaye ina ilmihii maanta oo dhan markii aniga aan saaxiibtay u tago ama maxay ahayd oo gurigaada aan soo boqdo ku imaado oo ilmahaada aad ka sheekaysid cunugeed ama teenager waay uu kugu adkaaday ama gabadhaadiba maxay ahayd xijaabka iska tuurta example ba maxay xidhata qamaar ama adi waxyaalaha kula soo kulmay marka ilaahay taagso ilaahay la baryaa wax kasta loola dhigtaa laakiin se anaga waxa u badanaha Soomaali ahaanteena inaan qofka saaxiibta u sheego wax inaan u sheegto maxuma oo tiraada saana jirta laakiin se cunugiyo kula jooga waxa leedahay walaalay wallahi kan wuu idhibay madax adeegya ka batay habeenkii intaas u imaanaya maxay ahayd saaxiibo xun oo la socda yaa صاحبه marka qofkan saaxiibta muxumo hadalka iska bixi hadal is nice in qofka la hadashid laakiin make sure marka cunugan wax ka sheegaysid ama caynaysid ama maxay ahayd aad leedahay waa diblow dhibo wareeg loo waayo dad saan la socdaa dad madax adag la socdaayo waxba iima qabto you don't have to in qof kasta cunugiyo ku maqlaayo amaanta ka sheegto because intii in ka badan iyo xumaataaba si galowsa markaas halkaas intuu ka sii bilaabo booba dhii awal wax ma maqli jirno hooyadeena islaamay kaaga sheekay jirtay keep moving forward waxaaba siinaysaa jid uu ku sii halaabo uu ku sii socdo marka anakan waa u badan maanta dhan cunuga telefoona ku hadlaysaa farxiyo haasaana dhacday heblaaya kala wiil cunugayga saano noqday wala
intaa waxaa soo bilowda waxaa kaaga sahlan adoo intaa ilmahaada la fariisatid ooda qaylin aadaan u qaylana qaylada la iska joojiyo ilmaheena soomaalida qaylada in laga joojiyo hooyooyinka oo la fariisatid tira hooyo dhaqan uma lihin ma umaleenaya maxay ahaato oo cunug inta lala fariisto oo lala hadlo oo xoogaa maana kusoo korna qaylo iyo ilmo canaan iyo dil iyo xoogaa iyo jecjecis ayaan kusoo korna marka maasha allah ina cunugii la fariisatid hadartaan wadankan la joogo ama meelahan la joogo waxaa waaye communication is the key dhahan ma arkin ogaalada marka ina cunugii markuu teenager ku noqdo aad la communicate garaysid hadduu iskoolka ku xun yahay aad la hadashid asagii macalinka aad dhex martid haddii aad luuqada aqoon qof kale aad la kaalshatid ilmihii inta kaa qarnayaana badan marka hadda marka qaylo badan tahay ama kaba soo qaad maanta dhan caynaysid soo kula communicate garayna maxba kuma sheegay because wuxuu dhihi hadaa hada hooyo tira gareedkayga waasaan wayba kugu caynay bir islaamiya ku sheega marka wuxuu ka bilaabaa inuu wax ka qariyo inuu wixii hayd gareeyo marka taasna hala joojiyo ayada marka example-ka maxay ahaato inaad saaxiibta u sheegtid ama qof cunugaada hortiisa ayadoo gurigii la wada joogo ama maanta cunugii canaanatid oo ciis qof waxa laga yaabaa inaad dad u tagtid gurigooda marka u tagtid cunugii caynaayo dadka hortooda waxaas walaalayaal ala joojiyo ayadana waa example kaleeto oo maxay ahayd inaad cunugaada dadba hadday joogaan iyo marti kula joogto ama saaxiibta kula joogto ama family friends kula joogaan inaad hadalkiisaba aad soo qaadin because cunugan adaa dhashay adoo kaasoo go-ay hadduu xun yahay aduu ku xun yahay hadduu fiican yahay aduu ku fiican yahay you have to deal with it yourself inaad la hadashid inaad la sheekeysatid inaad haddii qof weyn yahay council ama waxa u tagtiin adiga stepyaasha maasha allah marka inaad dhinaca kale ka marto waaye dan kale oo ahaydna waxaa waaye cunuga hadda diet aan sheegayay oo afaraad qaybta tan afaraadna waxaa waaye taas midda saddexaad ahayd tan afaraadna waxaa waaye cunugii ina ma arkino hooyada aabaha saan lagu suubiya w ten and all those Soomaali ay dhahdaan hooyada madaxa la sheegi kara ma arkay ma soo marsi kariye laakiin cunuga ku xisay maanta dhan hadda markuu eragii barto oo w ka bilaabana waa taqaaniin wuxuu dhahayaa okay hooyada maxay idin jirta aabaha isaan iyo awowga iyo walaalada maxay idin jirta wala yaabi marka example waxa baraysaaba asiga leer on markuu weynaado inuu asagina sidii hadhowti oo dhaho oo hadalka ku hadlo dhahnaya islaantiisi w meesha ka soo jeedaba cune maxay tahay waxa sheegaysid marka ayadana dadka ayna anaka ismacayna hooyooyinka aabooyinka korka laga saaraa waar dhintay oo waa hore dhaca xalay aabahaadi ka sii jeeday kii ka sii jeeday cadaabta dalaq lagu siiyo ilaahay amarkiis marka taasna ayadana waa number 4 waa sheeka u badanahay marka tan shanaad oo kusoo gabagabeynaa waxaa waaye inaa cunuga la hadashid sida haddan ii sheegayay oo dhiirigelisid oo u sheegtid inuu cunug hadduu xataa oo ma aragta gaalada waa aragtay example hadduu cunug jiran yahay ay haystaan cunugooda way la socdaan waa la wareegaan banaanka usoo bixiyaan playgroundka way keenayaan meelaha lagu cayaaro meelaha lagu cunteeyo niyada u dhisaan intaas because qofkan asagaaba jirane damage inuusan kusii dhicin oo qodad uusan sii qaadin waa la sii teekargareeya marka anagana haddii ama cunug jiran uu kuu joogo ama waxay kuu joogo aada guriga ku xarin oo la baqin because inuu qof wax kaa sheegay cunugaada dhiiragelisid kii wax ku xun aad dhiirageliso tira hooyo wax kaa sarreey maba jiro adduunyadan yaa maasha allah maskaxda kugu jirta maxaa la dhahayaa haddii madaxweynaha waddanka xataa kuma jirto maasha allah hooyo saan u soco kii wax ku xun aad tiraahdo hooyo waxan waad ku fiican tahay u xayeysiisid maasha allah hadda cunuga aad kor u qaadid gabdhahana aan la caynin oo gabdhihiina ayankana hadalla xunxun haddii lagu taago waa gabar ayadana uqdad meeshaas ka qaadin marka videogayga maanta 5taas qodob ku saabsanaa insha allah 5 mar qodob kale kusoo dari doonaa oo ku saabsan ayadana ilmaha marka waxaan in la jeclaysan maadaama aniga hooyo barafaktiya ma ihi ilmo waa ii joogaan laakiinse waxa aan jeclahay inaan iska bedelo inaan in la sheergareeyo gabdhaha walaalahay ama hooyooyinka walaalahay sidoo kaleeto kulli inaan iska bedelno wixii xun oo waxsan aan ku bedelno diinteenana waa nasteexo waxay ku tiri ilmaha maxay ahayd wax fiican ku dheh maxay ahayd inaa hadal xun ku dhahdo laguma ogola carabkaadi iyo dambigaadi iyo waxaas dhan kuma xabaarka kuma fiicnaa lagu dhahay waxyaalahaas dhan maasha Allah waa laga hadlaa ku wax ku qaatan ilaahay hanaga dhigo maasha Allah marka maanta video intaas ku saabsan yahay haddii aad ka heshiin qodobadan maasha Allah let me know and share maxay ahayd anigana inta iga dhiman iyo wixii kaleetana maasha Allah ay igu soo dirtiin marka aad ayaan inkaga rajeynayaa khayr badan ayaan ii rajeynayaa iyo caafimaad marka insha Allah don't forget inaad subscribe gareysid gambaleelkana aad taabatid again si more videoga aan soo suubiyo kaleeto uu ku soo gaaro wassalaamu calaykum